sidoo kale dawladdu waxaan ugu baaqaynaa in ay baaritaan dhab ah ku samayso sababta keentay in 8 suxufi laba maalmood gudahooda lagu xiro raxiim alxamdulillaah rabbil caalamiin waa mahadsantiin maanta waxaa halkan ku kulmay qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho waxay diiradda ku saareen kulankooda sidii loo gudbi lahaa caqabado maalmihii la soo dhaafay soo wajahay suxufiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa wardoonayaasha ee ka howlgala idaacadaha iyo telefishinada madax bannaan ee ku yaala magaalada Muqdisho suxufiyiinta halkan ku kulmay waxay isku raaceen in ay muhiim ay tahay in booliiska oo 24 saac la soo dhaafay qulqultooyin u geystay bahda saxaafadda qaarkood ay joojiyaan xariga joogtada ah ee ay ku hayaan suxufiyiinta gaar ahaan kuwa wardoonayaasha ee ka tirsan warbaahinada madax bannaan ee ku yaala magaalada Muqdisho dawladuna il gaar ah ay ku hayso badqabka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee marxaladda adag ku shaqeynaya labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa si sharci darro ah oo sharciga baalmarsan loo xiray ilaa 8 suxufi oo warbaahinta magaalada Muqdisho ka howlgala waxaa ka mid ah Shukri Aabi Cabdi Deeq Macalin Jiino Xuseen Makaraan Najiib Faarax Maxamed Abuukar Maxamed Cabdirashiid Cabdow Bashiir Cali Shire Mahad Cabdirasaaq Xuseen ayaa ka mid ah suxufiyiinta sida sharci darrada ah loo xiray marka waa tiro aad u badan in laba maalmood gudahooda 8 suxufi oo hawl shaqo u socday in la xiro taas ayaa keentay in maanta aan halkaan isugu nimaano oo aan ka dhiidhino oo aan cambaarayno waana ka xunnahay mana loo dul qaadan doono dhowr jeer waan sheegnay in suxufi Soomaaliyeed oo ka howlgala magaalada Muqdisho oo markii hore dhibaatooyin ku shaqeynayay in haddana inta la iska xiro muuqaalada laga tirtiro taas waxay markaas xadgudub ku tahay dastuurka ku meel gaarka iyo wixii lagu heshiiyay ee markaas dalka u yaalay waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka Soomaaliya in arrintan ay ka digtoonaato il gaar ay ku hayso badqabka suxufiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasha wardoonayaasha oo marka horeba iska dhibanaa in dhibaato kale loogu daro oo inta la iska haysto saldhig la geeyo xorriyadda laga qaado muuqaalada laga duubo waa xadgudub aan loo dul qaadan karin dawladda federaalka Soomaaliya mar kale waxaan leenahay waa inay ka digtoonaataa oo ay joojisaa xadgudubka lagu hayo suxufiyiinta Soomaaliyeed sidoo kale dawladdu waxaan ugu baaqaynaa in ay baaritaan dhab ah ku samayso sababta keentay in 8 suxufi laba maalmood gudahooda lagu xiro magaalada Muqdisho aad u mahadsantiin